السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان وحوجا عافمات برامجكينا حوجا عافمات waxaan maanta ku soo qaadan doonaa mowduuc xasaasi ah kaasi oo ah communicable disease ama cudurrada la isqaadsiiyo ama cudurrada faafa waxa doontaba leh ee maanta ka hadal doonaa insha Allah. ka horantana barnaamijka aan guda galin waxaan ka codsanayaa inaad YouTube channelkeena xooga caafimaad subscribe noo saartaan linkiga soo dhignay sidoo kale Facebookgeena aad follow gareysaan. haddii aan mowduuca guda galo cudurrada faafa waxaa loola jeedaa si guud hadaan u sheego cudurkan in la isqaadsiin karayo oo qof intuu ka soo gudbo qof kale oo ku dhici karayo waxa markaas ku magacaabeynaa cudurkan waa cudur faafa ayaan ku magacaabeynaa ama waa cudur la isqaadsiin karayo. cudurrada la isqaadsiiyo waxaa la isku qaadsiiyaa laba habka ugu horeeya waxa weeye direct transmission wax la yiraahdo ama gudbin toos ah taas oo ay ka dhigan tahay macnahan in cudurkii qof qaba aad contact la yeelato tusaale ay aad salaantaan oo kale inaad is shumisaan inaad galmo isla suubisaan markaas qofkii cudurka qabay wuxuu ku qaadsiinayaa si toos ah isu qaadsiinaysaan. cudurrada la isku qaadsiiyo waxa kamid ah judaanka oo kale waxa kamid ah goraanada qaarkood waxa kamid ah sfiilitada waxa kamid ah jabtada waxa kamid ah jadeecada waxa kamid ah busbuska waxa kamid ah furuqa. sidoo kale waxaa lagu soo gudbin karaa ama qof cudurkii qaba oo kugu soo gudbin karayaa cudurka uu qabo inuu ku soo gaaraan calyadiisa oo kale tusaalahan hadduu hindhiso haddii uu qufaco kale. cudurrada la isku qaadsiiyo qaabkaas waxaa kamid ah dadka badan hergebka qaba ay ku qaadsiin karayaan haddii ay hindhisaan ama hindhisada ku soo gaarto faniinkeeda ama qufacu ku soo gaaro. sidoo kale waxaa kamid ah TB-da oo muhiimsan waxyaabaa la isku qaadsiiyo qufac ama calyada qofka inay ku soo gaarto. sidoo kale waxa kamid ah gowracatada ayaa kamid ah. sidoo kale cudurrada aad si toos u qaadi karayso waxa kamid ah cudurrada laga qaado ciidda waxa uu muhiimsan wax la teetanada waa taqaaniin saameynta ay leedahay in la qofku ka gaaro heer uu geeriyoodo oo uu dhinto cudurkaasito waxaan badan laga qaadaa ciidda laga qaadaa markii qofka meel dhaawaca oo jirkiisa kamid ah ay la yeelato xiriir la yeelato ciidda ama ay istaabtaan ama waxyaaba ciidda laga keenay markii hore qofka la marsho kale. waxyaabaha kale toos la soo gudbin karaya waxaa kamid ah cudurrada hooyadu ay u gudbiso cunugeeda waxa la yiraahdo transplacental transmission waxa cudurradan kamid ah sfiilitada waxa kamid ah AIDS-ka waxa kamid ah hepatitis-ka ama cagaarshow wax la yiraahdo way ku gudbi karayaan maamada dhiiggeeda ka soo gudbayaan waxay u gudbayaan cunuga dhiiggiisa. hadda waxaan guda galaynaa habka labaad oo loo yaqaano habka aan tooskayn ama indirect transmission waxa loola jeedaa cudurkan qofkii qabay ma ku qaadsiinayo laakiin walax idin dhaxeeya adiga iyo qofka cudurka qabay ayaa cudurkii soo qaadaya. cudurrada qaabkan ku gudba waxaa kamid ah malaariyada oo ay gudbiso nooca dheedig ee kaneecada waxaa kaloo kamid ah typhoidka waxaa kamid ah dysentery wax la yiraahdo waxaa kamid ah koleeraha dhammaan waxaas waxay ku gudbi karaan ama raashin ama biyo ay ku gudbi karaan wasaqaysan. marka cudurkii toos maadan ka qaadan qof laakiin waxay ku soo mareen biyaas ama raashinkaas aad isticmaashay ama kaneecadaas ku soo mareen. inta ayaan ku soo gabagabeynaa mowduuceena tan iyo kulanti dambe oo wacan insha Allah mahadsanidin insha Allah channelka subscribe noo saara shina share gareeya oo la wadaaga asxaabtiina mahadsanidin.